المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريال دمانتين سومالي محمد وايد السلامية ويوتوب وسوية دمانتين ولا ريال ميلاد شوفتان وايد السلامية وحنكو السلامية سلامة وقال السندون كل اسكو السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وحمد الله إلهي يدنكو حفظ ميلاد شوفتان بقى دنيا آخرة دمانتين بولا ريال meel kasta aan joogno ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalyaal haynoo kugu dambi dhaafo intii nabigooda maxamed aha xawlkiisa ka cabtayna allah hayna ka dhiga dhammaanteen meelaan joognaba soomaali maxamed inta afkayga garanaysa ilaahay dambigeena dambi waaridkeenba ha dhaafo ilaahayna haynoo kaga dhigo maalinta iyo saacadda iyo goorta ilaahay kuwu dambigeena ku dhaafo ilaahay idankiisa biidmillaah dhammaanteenba ilaahay haynoo dambi dhaafo walaalayaal sidaan idiin jecelahay ilaahay ha idiin jeclaada insha allah المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة dhammaantiin walaalayaal horta sidaad u maqlaysaan in quraan baan waxa weeye waad maqlaysaan aayadaas waad fahamteen bay la tahay dhammaantiin walaalayaal horta dambigeena dambi waaridkeen ba Allah dhaafo caruuraha meel ay joogaan ba ilaahay subxaanahu wa xayaati وسينة الحياة الدنيا إلهي نو حفظه قورر عينته إلهي إنه عندهن إنه كجدك إنه إلهي سبحانه وتعالى هنو حفظه هنو دم بدافع ولا لي دم أنتم با عرورت الله إنه حفظ ميلي شوقان بدم بجني دم بورد كان بالله دافع ولا لي ما أنت موضوع إنه كو تشهيه ولا لي إلهي سبحانه وتعالى النبي جن محمد عليه الصلاة والسلام ولا لي السيدة وماركتها وأها نلشي سام حياته دي wax soo koobi karaa ama wax sheegi karaa midna mala laakiin inaan ku dayano aadanaan nahay inaan ku dayano ayaan rabnaa hadii alla yiraahdo walaalayaal dhamaanteen ba sida ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa aynu sharaf iyo qiimo uga yeelano oo aynu maaragtaa dad noqono ilaahay dadku jecel yahay sida nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam alla u jeclaas inuu inoo jeclaado oo aynu rafiiqiisii noqono ayaan rabnaa walaalayaal maanta inaan wax iska taabsiino insha Allah biidmillaah walaalayaal waxaan sheeganaynaa haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed inteeda badan waxaan sheeganaynaa inaan ummadii nabi maxamed nahay calayhi salaatu wasalaam walaalayaal marka maxaynu ku noqon karnaa walaalayaal oo aynu uga dayan karnaa wax badan oo badan baa laynoo cadeeyay quraanka laynoo kugu sheegay wadaadada caalimiinta oo maaragtaa wax yaqaana inoo sheegay anigu caalimna ma ahay quraankana intaan ku tukadaan ka aqaana laakiin qof waxaan ahay ilaahay mar walba jecel oo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam jecel oo adeecdaan ahay marka waxaan jeclahay walaalahayga dhamaantood inay meel joogaan ba inaan maaragtaa iyaguna iiga sheekeeyaan aniguna aan uga sheekeeyo ilaahay dambigeena dambi waaridkeen ba walaalayaal ha dhaafo waxa weeye walaalayaal waxa laynoo kaga baahan yahay inaan uga dayano nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badan oo walaalayaal oo laynoo cadeeyay wax layna ka qariyay mal hadaynu aadananahay waxba layna kama qarin wax walba walaalayaal waa laynoo sheegay oo wanaaga ilaahay inoo dambi dhaafo ilaahay dambi والحسد والسحر حتى من ظلم العباد لك بمشيئة الله. أولا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثانيا واد مقليسان معناها آيات صداد خرسان وإلهي كما قنقشانين إلا عمنا وحو الله ليا واقب لها وعربي بكو الله إلا عمنا كو أركي ميسو. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثالثا بسم الله ثاني محيري أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إلهي الشر ربنا كحجابي ولا ليال هدين ودهن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومقليسان
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومقلسان إلهي سبحانه وتعالى كقدر مهيو سماء إيا أرضك هدات رادد آيات داس ومقلسان وحول بو وناغا ولا ليال ولا ينو شيغي إلهي سبحانه وتعالى كوي قاتو إلهي كو أنفع الله هنا كدغ إلهي أنا كدغ كوي ماركتا ولا ليال قاتو أو قرآنك إيا قولك وناكسن أو ماركتا ودادد إنو شيغيان أو دادكو إنو شيغي أو إنو أقلسانين إلهي سبحانه وتعالى ولا ليال هينا كدغ كوي ماركتا إلهي سبحانه وتعالى أكتيس بري أين ملهن عذر ملهن هنا دهر وحبنا لو ما شيغنو داد أميهان أهين إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي ومقلسان ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى إنه صوت كيسج قرآن كيسج على إنه أخرنتي إنه كن يدنا قلبك وسيد دينه وقلبك إنه كن راحيسنا أي إلهي سبحانه وتعالى ولا ليال إنه كل الدردارمي صوت قرحان محات الصورة ده قرحان ولا آخرنا مركا إنه مقلوا إنه هاس يوحب بالريء إنه وحبا إنه ترينا إنه كل مشغولنا وحبا إنه ترين ولا ليال وحبا إنه ترين ما يسو وحو ناكسن أو ناكسن أو ناكسن بإلهي إنه شيء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا ليال محين وقد ينكرنا وحين وقد نصبرك إنه يصبر شري دت كيس إنه يصبر شري إن للدلي أو صبري اللي قد لي ماشى اللي يرى هذا محمد هاي توحى اللي قد لي مكم أنت لجارين مقعد لحد قرن سنة كما صح حسوسنا إياه وقتي ما ورجينين ولا ما ودقالنا أنتوا حناقي لما ودقالنا وحير وحوي بربا لقيابا أنا يفهمان بوير هذا ما أنت يجرون واين ولا ليال wax badan oo sabrku baana ka dhintay isma sabrno ilmahana ma sabr karno ilmahana wax yar oo qalad hadduu ku sameeyo inaan anaga hooyooyinka waa waray dhahno qaylinaan qabanaysa waxaasna waxa way sabrki baa naga dhintay ma adeecsanin miya ilaahigina abuurtay nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam ma adeecsanin miya oo warkiisa ma maqlayno waa inaan warka Allah subhanahu wa ta'ala maqalnaa oo nabigeena maxamed ha ku dayanaa walaalayaal alayhi salaatu wasalaam walaalayaal sabrkiisa waa dageydeen kuwa baan ku qodax albaabka dhigayo soo booqan jiro dhigi jiray maanta yaantan kuma aan araga xagaada hada islaantii dhibta badnayd oo qodaxda albaabka dhigi jirtay iyo dariiqa u marayo waad ogtiin walaalayaal hadda ka hor baan walaalayaal waxaan ku riyooday nabiga maxamed alayhi salaatu wasalaam ayaan ku riyooday oo muxuu hayto oo ba aniga iyo islaan kale hadda ka horna youtube-ka ku sheegay waa u malaynay aniga islaan kale oo islaan asli la yiraahdo ayaan dhimashadeeda maqalay Soomaaliyan ku ogaa ayaan waxaan ku riyooday aniga iyadoo isla socno markaasna islaanta waan isla joognay laftigeeda waxaan oo Sacuudiga ila joogtay waxaan ku riyooday aniga iyadoo guri iridkiisa buushbuusha guri Soomaali iridkii anagoo farfadhino meel ciid bacaada markaasna waxay ila tahay waagi baa soo bariyay adigu waa shantii habeenimo gabar yar oo hadeertan ii joogta Allah ii daayay ayaa dhabta ii saarnayd baan leeyahay markaas gabadhuna markaa yariis bay ahaydba waxaan aragnay guriga dayd gaaban oo qodaxya oodaabuu lahaay shishadiisa baa wuxuu ahaa qol xaggan hadda iga xigta meesha maka loo tukada iga xigta iyo xaggan Soomaaliya iga xigto kale meel ah oo dayd guriga dhexdiisa ayadoo marna jikaday galaysa marna guri gabar qurux badan bayna ii leekay markaas waxa la eeday gabadhan qurux badan maxay islaantii baana eedayna islaantu ii tahay markaas waxay u tiri wallahi gabadhaana markaas waxay u tiri أما عائشة طيبة يقولون إسلامتي بقى يقولون إسلامتنا قف وذا ما شاء الله تبارك الله وياه أنا كو عائشة يقول تاجنتي أيان الباب كيسك صفرة ودي يبوك الصباحي أودي بيسك قاضي الباب كي بحق يسكدي الباب كي ماشي يسيبك عليه وصباحي مركب ميل سان هذا يقدر كي حتى أو كلا أو محايته بوحة كويا المسجد يرى واضح مسجد يرى أوضها كويالا مركز عن سلاه مسجد كان يركا يقريها يدين كدن بيسو سعدا مركو كسو بحي غوريغي وسا اودي وسو دافو دايدكي كسو بحي لبدا لغود سغا مري وانين قروح بدن وانين مان ديرين وانين غار اسكو جوغله او عد لبدا لغود بان سغا مري نبي الله وا ku jeclay markaas wuxuu leeyahay maxaan ku siiya wax walba waxaan ka soo dhaweysay waan ku jeclay markaas wuxuu yiri waa yahay adigu hadaad waxba sheeganay gabadhan yartaay dhabta ku saaran inta nabiga siiday alayhi salaatu wasalaam baa waxaan ku yiri waa yahay gabadhi waa tan qaado
gabadhi yartahay buuqaatay masjidku la aad aniga islaantii baan markaa islaantii baan ku yiri eedo nabiga gabadhi yartahay xagee la aad gabadhi yartahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam eeday xagee buu la aad orod baan isqaado masjidkii baan orod isqaaday gabadhiyo albaabka taagan markaasna gabadhu waa gurguuratahay ma socoto gabadhu iyadoo runa gabadhii oo agtayda hurudda ilaa waan riyoonayay agtayda hurudda waa aniga xanka kaabsaday oo waxaan u maleeyay inay albaabkii nabiguna waa adimayay maqrib cisho subxi buu adimayay gabadhi yartayd waa aniga soo xanka kaabsaday gabadhi yartayd run waa aniga oo xanka kaabsaday xanka gabadhii la booday oo run hadda agtayda u hurudda ayaan la booday gabadhi yartayd waa iga xanuunsatay dhakhtar baa la galay oo waa naag Filibiinaha intay durtay iyadoo hurdaysan gabadhoo hurdaysan ayaa neefta ku dhagtay waaba ay sigatayba ilaahay subxaanahu wa tacaala baa walaalayaal horta u gargaaray marka waxa weeye alxamdulilah يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا نبي سلام ku saleeya nabigeena walaalayaal alayhi salaatu wasalaam walaalayaal marka waxa weeye qofku waa aadamiga ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu u keenay adduunkan maxaa alla inoo keeno walaalayaal ilaahay wuxuu inoo keenay walaalayaal inaynu maaragtaa aynu amal wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay inaan samaysano adduunkan waa laga tegayaa sidaa loo xoog badnaan mayo sidaa loo hadal badnaan mayo sidaa loo qurux badnaan mayo sidaa loo ordi mayo sidaa wax walba loogu xisaabtami mayo maalin baa ina ka hor imaanaysa walaalayaal la leeyahay maxaad soo samaysatay camalkaagaad soo samaysatay bas uu kaa raacaya adduunkan waxaa laynu kaga baahan yahay walaalayaal inaan nabigeena maxamed saburkiisii yeelano calayhi salaatu wasalaam inaan siduu salaada u tukan jiray maxay tahay Aisha waxay tiri siduu u taagan yahay lagu hadii ka dii jiray oo ay ku tiri nabi allow ilaahay soo tu dambigaagii dambi waaridkiis ma ahna waxa dambigaagii sootaan uu kii hore iyo kii dambaba sootii alla dhaafay markaasuu yiri caashay haddii ilaahay dambigaagii hore iyo kii damba dhaafay mays iloobaay macnaha waa khalaas weey dambigayga waa la dhaafay meel baan seexdaa marka walaalayaal inagoo aadanaa oo wax laynoo sheegay adduunkan jirinin oo laynoo sheegay bas inaan cibaadaysano oo layna dhihin intii malaa'ig laynoo soo diray khalaas jannadaad galaysaana iska farfariista aan layna dhihin inaan iska fariisano ama waxaan ilaahay raalli ka ahayn aan samayno walaalayaal waa qalad weeye mar walba waxaa loo baahanyahay walaalayaal inaan ilaahay ku xirnaano inaan nabigeena maxamed ahaa rumayno ilaahay subxaanahu wa tacaala calayhi salaatu wasalaam ilaahay inoo kaga dhigo inaynu nabigeena ay ku weynaato uurkeena iyo caloosheenna ay ku weynaato inaan dhimanayno oo qabri aan galayno ninka asxaabiga ahaa oo nabigu weydiiyey waad maqasheen nimankuu weydiiyey oo yiri maxaad adduunka ugu jeceshahay mid baa wuxuu yiri waxaan ugu jeclahay dhimashada waxaan ugu jeclahay gaajada waxaan ugu jeclahay jirrada asxaabiga magaciisa waan hayay waa hadda waa iga maqan yahay marka wala daif bay meeshan sheegay oo maaragta nabiga lagu tuuriyay calayhi salaatu wasalaam walaalayaal marka asxaabigaasna waan soo xasuusan doonaa walaalayaal marka inagu waxaan jecelnahay daragta waxaan jecelnahay inaan dadka ka xoog badanahay waxaan ka jecelnahay inaan dadkoo dhan ka horeyno waxaan ka jecelnahay inaan dadka ka koreyno waxa inta ilaahay ugu neceb yahay aan ugu jecelnahay inagu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka miskiinka oo daciifata rabbiga oo aan dadka dulmin oo masaa'ib raadin ilaahay waa jecel gabar yar oo aan dhalay baa waxay maqashay reer hebel waa kiday reer markaas waxay tiri ما عندكم ما هيستان ميا قف ضعيفة الربي كل واحد هدات هذا وده هبل إنا سنكتابتي إذا إنا بهالكي إنا وده تذكر سومالي كيمان يوردن مقعيضة ذو قريب بيتري يا أمي هذا كلام كلكم اسمكم كذا أنا ليامي مركزان كويرو ما وحوي ولا قبيعة إلا بحين أنا جيبها وحكوا هذا الجروان وارنتي قف مسكينة ضعيفة الربي إلهي قانا كمشرم يا مقعيضة أنا وده قرية يسياد يسيج وحوي ولا ليال مرك قفك walaalka oo wanaaga aad ka dhageysatid oo wanaaga sida wadaadada kale wanaaga inoo sheego yiraahdo qofka ilaahay iyo rasuulkiisa kaleey salaatu salaam ka baqa faa'iida oo faa'isa qabiilka walaalayaal rasuul leeynaysa waa kii jahanabada lagu galilaa cadaabta lagu galilaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala la tacaaruf oo yiri isku dilay isku laayay isku baabeeyay isku adoonsada midna lama dhihin
وارجت واحد كسعودة محوها يوتيوب كسعودة قبيل بار أنت الله يسوعي قبيل بنت الشيء يعني هبل بارها هبل لانا ولينا ما رقف دار ذهب مدح الله صار اللي يرجعنا ذا الجلسة خلاص أظن إنه هبل كسيه ما مدحيس أنت مدح كديريه هباته ما نعرف مركو ولا لي المرول بإله سبحانه وتعالى كبقى قف والبوحة ويا نفط هذا قدنا إكلها قدنا إن نفط هذا قدنا صوتي تبري واحد مدنيس النوب بري واحد مدنيس النوب إلهي بقى واحد مدنيس مرول بوحة لقاه ربع إن إلهي الدعدي إن النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام ولا لي وماركته كديتي نبي الله وحس ما وماركته سميت لنا ترادي إلهي سبحانه وصبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام صبر في سوابنا وحول بس صبر كان ما أنت وصانا الجيل وصبر لما له إلهي بقى عبد القادر لبا هي ست الحمد لله إلهي وضايق عبد القادر كرا وحول بول عليها صبرك وحول ومفتاح الفرج ويه والباب كان كفر ملها مفتاح يسوي الباب كاحر المفتاح يسوي هذا مفتاح يسكسر بمسيره صبرك يكتك ولا عليها وحبا فايد ميسي كدايو محوهايتو sidii maaragta oo maaragta ugu sabri jiray iisaanku markay dhibaan kudayo sidii maaragta oo maaragta iimaanka u lahaa gaajada qofku waxa weey gaaja ay hayso maxay maanta dhibaata ay ugu dhacday oo ilmahaygu wuxuu ma ana karin oo may ilaahay subxaana qaadir walaaliyaal waxa weeye nabigeena maxamed caleey salaatu wasalaam oo wax walba loo ballan qaaday baa yiri mar rabo adduunkan wixiisa inagu maxaynu nahay inagu aadana masaakiin oo waxaynu nahay ilaahay xaaladeena ogyahay qofka wanaagsan walaaliyaal wuxuu ku daydaa nabigiisa maxamed caleey salaatu wasalaam ilaahay yaa abuurtay boo adeeca wax walbana waa uu faa'iido markaa waa faa'iido adinku bal teel gareeyo oo walaaliyaal inta teel gareysa qof dib kuga haya waxa tiraahdaa salaamu calaykum marka aragtid seetaay walaal ma fiicanta khalaas kan gudub intuu isku naxabo wuxuu leeyahay oo qofkaan ma dagaalsanaydeen muxuu ku salaam حتى قفك أسقون إسقرنا إن عليكم السلام ورك عدايا هذا وقفك كل دجال صناعي وأنكو أركي كريم وأسقي بعد بسقون قنية أنتوا قاعد بما دوروا إيه ورساتها ما في عندك هو في أنا ولا الحمد لله ما في عندك بس كذب أذنكم في ريا بلتيل قراية أنا قلت تيل قراية في ريا ولا ليا قف كنا عبها دات سلام عليكم ولا لي ورنت راد والله قلبي سود دبعية ها ولا الوافي أنا جور كبير ما قرنيس ولا ليا المركب الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى تاريخ ذا تاريخ في عنا كديجو أنت النبي إن محمد عليه الصلاة والسلام رمى يسير راعي الله هنا كديجو أنت إيمان كذا كل طريق مرت الله هنا كديجو أنت وحول الباء إنه عرقنا أو نبي دبعة ترى إلهي سبحانه وتعالى أرنتي سود يست الله هنا كديجو مروا البر ولا لي واحد أركته واحد في رسالة واحد بدن بينه عرقنا إنه يوتيوب كهرلنا أم يوتيوب كقايلنا إن أم وحكي سمينا إن wax badan baad aragtaa laakiin isku teel la gareeb bal inaad ilaahay subxaana arrintaada u dhiibatid inaad nabigaaga maxamed calayhi salaatu wasalaam adeecdid oo aad maaragta wuxuu sameyn jiray samaysid ku ilaahay subxaana wa tacaala dartii qofkan ku daa ilaahay subxaana wa tacaala wax walba walaaliyaal ku dhaaf marka waxaad ogaataa walaaliyaal anigu hooyo Soomaaliyeed baan ahay horeyna waa idinku sheegay waxaana jecelahay waxaan anigu nafsiyan jecelahay inaan dadka u soo sheego نفسيا أنا محن تعالى وحن تعالى إن إلهي سبحانه عبده نبي محمد هاي أنا رميه إن آخرت شن هذا قلان ربا قفك إلى قليا إلهي إلى عبده نبي محمد هاي إلى الراع أنا وحن تعالى إن شن هذا قلان أدون كان وحن كقاضي من العرور بان راعين هويان راعين آبان راعين نبان راعين عرور حولان راعين بس أنا كل جاي ومرع الله يقدوه يا كتجي أدون كان أدين كانوا وحن ربعنا سيدو كلو أبتينو إن الأدون كانوا إذا مشغولين أو نفتينو أيسن بيله إذا كان نقولين إلهينا أنا ما بيديه إلهينا ما بيديه ولا ليال أين كنا ذكر رفيقنا أين نبي أن محمد هالراعنا ورمينا إلهي سبحانه وتعالى وحق يسهنا أو نبت أما الملا يسقطي أما دبات الله يسكت سمي ولا ليال إلهي بينك كحلنا إلهي بينك كحلنا أرنت هذا اللي بدس أنا قبل فاضل بران بروان دقيستا وان في الصلاة ما شاء الله تبارك الله قفوا إنه إيمان لي سجاد سداد عمرها لقى قاتل هديسنا إيمان كذا كم مرة دب سؤال لها الله المهي بالله يقاطي أنا وحاني أنت سعرور عليه وأكون دكتور وصادر وأكون رفاض الله سيبا قال إيه قاتل دمرك وربعنا الدم بقولها إلهي سبحانه وتعالى بقى وقدر إليه الكلجي مرك إلهي أصبر إلهي يشارك هو يسي إن هو يسري ماشى إن تكتب إلهي إسال كافر طامن قال قالوا وير النبي محمد أنكر الدين تينا لدين أن الدين تينا لكم دينكم ولي الدين
ilaahay ha nooga badbaadiyo caruuraha yaryarka Soomaalida oo meel lagu walba lagu haysto allah nooga badbaadiyo laakiin ilaahay adeec nabigaaga maxamed ahaana adeec walaalayaal waxaad ogaataan ilaahay inuu ku furdaaminayo wallahi inaadan khasaarin waa faa'iideysaa walaalayaal iimaankaaga markuu qawi yahay ilaahay ku khasaarin mayo walaalayaal iimaankaaga qawi ka dhig ilaahay ku khasaarin mayo walaalayaal wax walba imisa dhibaato nabigaaga maxamed ah lagu soo sameeyay ilaahay baa mar walba ansura dhib kasta ay la fiirsadaan ba ilaahay baa ka ansura ka saara ilaahay baa ka faraja innagana ilaahay saas u gaalo dhan iyo dhibteeda inooga farajiya ilaahay ilmaheenu nooga furfuraya dhibtooda ilaahay naga farajay ilaahay ha naga hayo walaalayaal ama gaajo ama waxaysno Soomaaliya marka joogto ciidu ilmahaaga kuguma haysan ciidu waxa way dhibaatadan hadda maaragtaa qurbaha dadka ka haysata kama haysan laakiin mar walba Allah ku xiro aba qurba joog dhibti Allah kuugu talagal inay kugu dhacdo mar walba waa kugu dhacaysaa adigu mar walba ilaahay adeec mar walba ilaahay u dhawow mar walba ilaahay talada saaro mar walba nabigaaga maxamed alayhi salaatu wasalaam walaalayaal ilaahay u bari waxa tirada Allah ilaahu adiga rabbigay warintayda ku dhiibtay nabigaaga maxamed adeec walaalayaal wuxuu sameyn jiray wanaagaha samee sadaqa ha noqoto hadal wanaag hadalka walaalayaal adaan xoolo bixin waxa way hadalka wanaagsan waa sadaqo niman ba asxaabtiga waxay yiraahdaan anagu xoolo ma haysan dadka xoolaha leh baa naga fiican waana cibaadaystaan xoolahoodana way dhiibtaan wax badan baa la idin sheegay walaalayaal dib idinkugu celin maayo wax badan baa quraanku inoo sheegay wax badan baa wadaadada inoo sheegay wax walba astaghfirullah baa ka weyn astaghfirullah atuuba ilayka ka weyn walaalayaal marka ilaahay bariya ilaahay subhanahu wa ta'ala arintiina u dhiibta mar labaadka kale nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam wax badan oo inuu wadayno walaalayaal ayaynu gacanta ku haynaa kitaabkan quraanka ku yaala walaalayaal wax walba bal adinku fiiriya wax walba gacanta la saaraa waa kitaabkii baa hadlaya kitaabkan aad jeedid waa kalaamkii alle waa hadalkii alle aniga hadda waa idin la hadlayaa saasaan u hadlayaa caawadan u hadlayaa laakiin alle kitaabkan hadalkiisii oo dhan baa ku kooban nabigeena maxamed ahaana lagu soo dejiyay alayhi salaatu wasalaam wadagtiin cidida kaga sheekayn mayso buurta xira oo maka ku taalay ku soo deg wadagtiin iqra markii la yiri walaalayaal hadal kalaba ma rabno uma baahnin kitaabkan alluu ku dhan yahay hadalkii alloo dhan ay reer galbeedka qolyaha aad tirahdaan ay diideen oo dhaheen muxuu yahay buugtan oo maalin walba meelaha la turtuuray hadalkii alloo dhan baa ku dhan qofkii kitaabka adeeci waay kula tahay inuu hadalkii alla adeecay ma adeecin hawaawigiisa adduunku raac marka walaalayaal mar walba waxaan idinku leeyahay anigoo walaashiina oo idin jecel ilaahay idin jeclaadee oo aynu isjecelnahay oo qofkii Soomaali maanta dib lagu sheego anaa boodo oo naxa qabli intaan qof kala maqlin sababta waa jirkaygii meel kasta ku noolaado gobol kasta ka ah joogo laakiin waa dadkaygii waa dhiigaygii wiil Soomaaliyeed waxaan leeyahay wiil Soomaaliyeed maanta anoo meel cidla iska maray iyaga xataa ima dhahayo gacanta ugu dhagay maxaa kugu dhacay walaal seetay walaal gabar kale muxuu ahayd gabar Soomaaliyeed waagi baadiyaha la joogi jiray oo magaalada la joogi jiray waxa la dhihi jiray gabadhu waa meel xun joog ilaahay meel xun ma joogo bal may wax fiican ku sheegaa subxaanallah gabadhu waa meel xun joog bay dhihi jiray calaashan maxay ka wadaan mid iska lugaynayo intaas oo bar lugaynayo xoolihii ka dhumeen baa wuxuu ka soo duldhacayaa gabadhii buu haybsanayna ayaa aadayna markaas walaasha ama adeertiis bay noqonaysaa oo dhow oo garayba halkaas la boodaysa cunno u kari neef u qal bog waxay haysataa si tafta ugu xir bal ka war marka walaalayaal ilaahay subxaana dambi waarkeen baa dhaafaana inoo naxariisto mar walba waxa leeyno kaga baahan yahay inaynu isku baabino wax wanaagsan isu sheegno oo ku faraxno wax baa aniga adeertaan noo jeedaan idin la hadlaya daruus baan leeyahay wallahi hadda muxuu ahayd soomkii waa lagu jiraa daruus baan leeyahay laakiin mar walba anoo daruustayda ku jira haddana inaan idinla soo hadlo oo wixii aan maaragta aniga nafsadaydu jeclaysato inaan idinkana idinla qaybsadaan rabaa sidaan anigu wanaaga u jeclo wanaaga u rabaan idinkoo dhanna idinla rabaa Allah idin siiye wax walba waa idinla jeclaa sidaa aniga wax wanaagsan ila jeceshin baan idinkana wax wanaagsan idinla jeclaa walaalayaal marka ilaahay subxaana dambigeena iyo dambi waarkeen baa dhaafo mar walbana waxaan jeclahay Soomaalidu inay hal fara ay tahay laakiin anigu ma awoodo ilaahay baa awoodo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qulubtooda wanaagsan haysto masaa'ibta iyo mashaakilka iyo dhibta ku dhex jirtaan Allah ka saaro
ومحايته دريدي دريدي waxa weeye aadam weeye kulligooda ma kala qabiil iyo awoow ayay ma kala lahan waa la tacaarufo weeye waxa la isku haystaa waa wax shaydaan uu madaxa u geliyay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka saara Soomaali dhibta haysata waddankood bay ku noqon lahaayeen nicmay ku jiri lahaayeen halkaas isku soo wada booqan lahaayeen guryahooda beera xun ay badarkooda ku karsadaan kay beera yar yara ayay ka samaysan lahaayeen gabar baa hadda hore ugu tiri inta ku gabadhaada inta ma naga qabsatay beed naagaada maxaad gabadhayda xumaan ugu sheegaysaa marka Soomaalidu toban luuqadood bay ku hadashaa ilaahay dambigeena dambi warteen baa dhaaf walaaliyaal inuu naxariisto mar walbana waxa idin leeyahay walaaliyaal wixii wanaagsan oo aad maqashaan hana la xishoon hana la baqay waa intaas qof walaalkaaya oo wax ka fahmaa waa intaas hadda gabdhaha ila soo hadla waxay yiraahdaan walaal YouTube-kaaga waa ku xiranay ma sha Allah waa ku xiranay YouTube-kaaga waan dhageysanaa wallahi wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay iyadana wax badan ha u faa'iideeyo anigana ilaahay kalaamkayga wax beena iyo balaayo iyo waxaan ilaahay raali ka ahay ilaahay iga xijaabo walaaliyaa ilaahay iga xijaabo wallahi gabdhaha ila soo hadla mar walba igu yiraahdaan walaalay mar walba YouTube-kaaga waan ku xiranay ma sha Allah tabarakallah wallahi wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay subxaanahu wa tacaala anigana tii maaragta Allah iga dhiga adinkeeda ka faa'iido dhageysato waxaad leediin oo wanaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigayga inuu ku qaboojiyo diinta igu sugo adinkana ilaahay diintana idinku sugo qalbigiinana Allah idinku qaboojiyo hooyooyin baatiin meelaad joogtaan boo idin jeclaa walaalahayga Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed oo qaarna walaalahayga qaarna anigu aan dhalay ilaahay subxaanahu dambigeena dambi waarkeen baa dhaafo mar walbana waxaan jeclaa walaalayaal inaan wax fiican isku guubaabino inaynu xaqa isfarno inaynu maaragta dadkii wanaaga looga dayan lahaa waa hooyooyinkeena weeye waa inaga weeye inagu waxaynu nahay hooyana ummi waxa la yiraahdaa carabta waxay tiraahdaa waa hooyo inaguna waxaynu dhahnaa dalkeena hooyo waad aragteen dalkeenu intee mugli egyahay ma sha Allah tabarakallah waad ogtiin anagu sidaas oo kale inana wanaaga in anaga leeyno kaga daydaal raba sharafta in anaga leeyno kaga day inaguna inay nabigeena Maxamed ayaa leeyahay abuurta uga dayanaa rabnaa walaaliya intuu inoo soo dejiyay inaan qowlkiisa ku qowlno oo hadalkiisa ku hadalno oo wuxuu sameeyno ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo inagana walaaliya qowlkeena xumaan uga dhowro marka waxaan ku baraarujinayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo hooyooyinka ama gabdhaha hadda hooyooyinka noqonaya ama kuwa yar yarkaaba waxaan ku baraarujinayaa wanaagu inuu ka fiican yahay wax walba aad sameysay gabar baad waxaad arkaysaa mara aan munaasabkeeda ahayn xiranaysa iyadoo jirkeedu qurxoon yahay gabadhay ilaahay ugu talagalo inay guursato hadday laba dhagax dhexdood salkiisa haday ku jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa u qoray waa soo baxaysaa meeshaas alla ka soo saaray wiilkana sidoo kale asagoon foodana jaran geesaana xiran gabadhay alla u qoray ilaahay subxaanahu mid khayr qabtaa uga dhigay waxay uga soo baxaysaa qabtay uga soo baxaysaa meel walba ay tagto walaalayaal marka ogaada waxa weeye anigu hooyaanahay wiilalna waa dhalay kuwa aan xataa Soomaali qabin baan dhalay Soomaali mid aan qabin baan dhalay mid muxuu kuwa Soomaali qabaan dhalay wiilalna waan dhalay gabdhana waan dhalay ilaahay ii daayo muslimiinta oo dhan caruurtooda Allah u daayo meel ay joogaan ba Allah u xafido anagoo dhan Allah noo xafido walaalayaal marka mar walba waxaad isku teela garaysaan inaad adigu wanaagu ka yimaado inaad ku dayatid muxuu ahayto kitaabkeenan ilaahay subxaanahu wa tacaala kulli shay ku soo qoray oo kulli shay ku soo cadeeyay waa inaad ku dayataan inta ku taala ina ku filan inta ku taala ayaa ina ku filan in kale uma baahnin walaalayaal in kale uma baahnin hadda inteenaas aynu ku ekaan inta haddaynu ku ekaano ayadaa ina ka badan khalaas uma baahnin sababtoo waaba adduunka ilaahaygiina keenay baaba keenay kitaabkana keenay innagana sidaan inoo soo qurxiyay suuradan quruxda badan suurad adduunka ilaahay abuuro waxa qurux badan dadka qurux badan haye waana ogtihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayga sidaa inoo soo qalqal quruxda badan ma sha Allah tabarakallah ilaahayna xafido ayaa kitaabkaana keenay waa qowlkii alle marka inaynu ka hadalno inaynu wax kala iyo fiirinaba ma ahno shaydaan inuu waswaasiyo yuwaswisu fi suduuri nnaasi yuwaswisinaya dadka waswisinaya laabahooduna waswisinaya iyo quluubta dadka inuu waswisiyo oo ka saaro waxa wanaagsan walaalayaal laguma ogola qolaa kaa dalfinayso aan ku ogolan laakiin waxaynu ku baraarujinayaa mar walba waxa wanaagsan baan ku baraarujinaya hooyo markaad maqashaan hooyo waa sharaf magaca hooyo waa sharaf waa qiimo gabdhuhu sharaf bay leeyihiin ilaahay baa siiyay cid ku diidi kartaa male sharaf bay leeyihiin iisaankaan qola aysan soo caayin oo aysan ka soo sheegin caaisho ilaahay sharfay bay wax ka soo sheegay waad ogtii gabdhaha wax laga sheegay walaalayaal
miyayna ogeyn in caasho in wax laga sheegay gabadhii rasuulku qaba calayhi salaatu wasalaam u sabura ilaahay subxaana wa tacaala arrintiina u dhiibta ilaahay arrintiina u dhiibta xalaal markaa tahay ood qof wanaagsan oo ilaahay ku xiran tahay wallaahi inaan cidna ku dulmayn inaan cidna wax kuu geysanayn mar walba waxaan jeclaa walaalayaal mar walba waxaan jeclahay inaan dembiga ka carirtaan inaan waxaan jeclaa dembiga ka carirtaan wallaahi baan ku dhaartay goor Soomaali iyo hadday ii yimaado qof ii yimaado waxaan jeclaa qofka inuu wax qayr qabo markuu ii soo galaan ku yiraahdo ilaaha wax sana ka keen waxna ilaahay hayga xijaab ilaahay hayga xijaab qofku markuu ii soo galaan bilaaba ilaahu ka xijaab haduu qofkaas waa hadal shar iyo qofka dacwood iyo dib iyo hadal haduu ilaahay hayga xijaab ilaahay wax qayr qabaan ka keenayaan sababta shar ma rabo ilaahay baan ka magan galaa ilaahu aan ka magan galay ba ilaahu aan qofna dulmi qofna uu san dulmi ilaahu qofna uu san dulmi qofna aan dulmin banda marka walaalayaal salaantana waa la badiyaa haddii lagu soo diro telefoon hadii tiiba telefoon ii soo dirto talo maxay iga rabtaa waxa laga yaabaa in ilaahay dartiisba kugu soo dirtay salaamu calaykum iyo war walaashay seeta dawa calaykum assalaam wa rahmatullah seetina idinku walaal ma fiicantana waa fiican alxamdulillah idinkuna waa fiican waa bas maahan haddii qofku salaam kuu soo diro salaamu calaykum lagu yiraahdo inaad tirada muxuu iga rabaa adigiiba asagii aan ka qaban baad adigu ku dambaabtay bal hadda day baad ku dambaabtay oo tirna muxuu iga rabtaa talo maxay iga rabtaa iga raadinaysaa haddii wa calaykum assalaam waqtiga xasiisadeedii iyo war walaal seeta sababta waa ku soo qiimayso ku soo dirto telefoon bay ku soo dirto ama waaba ku timidba marka walaalayaal ilaahay dambigeena dambi waarteen ba dhaafo qof walba walaalka ay qiimuhu ka taagay ama qiimuhu kugu leeyahay si haka xasti ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ku jeeda qulubtaada u jeeda ha malayn inuu san ku ogeyn yuusan aadanuhu ogeyn baa la yiri inuu ilaahay arkayo inuu arkayo yuusan aadanuhu ogeyn marka walaalayaal ilaahay dambigeena dambi waarteen ba dhaafo meel walba oo ka tawaleynana ilaahayna ka tiiriyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxsan oo aan ku faraxno ilaahay noo yeeriyo mar walba ilaahay sharka iyo shaydaanka Allah ina ka xijaabo ilaahay idankiisa sharka iyo shaydaanka Allah ina ka xijaabo walaalayaal dhamaanteen waxaan jecelnahay waxa wanaagsan baan jecelnahay dhamaanteen waxaan jecelnahay waxa wanaagsan qof nacab waxa wanaagsan ma jiro qof walba ma nabca waxa wanaagsan waxa xun buu nacabiye muxuu hayto ku seex hameenkii adoo muxuu hayto adkaartaada akhrisanayo ku soo toos markaad adkaarta adoo akhrisanayo walaalayaal marka qofka aadamiga waxa weeye asagu inuu isdamaniyo weeye qof kale inuu ku damaniyo oo maray adigu isdamani maxaad maanta geysatay asxaabtii way fiirin jirtay maanta maxaa shar geysatay maxaa khayr sameysay ayay isfiirin jirtay marka mar walba walaale ilaahay wuxuu raali ka yahay samee ha sameyn waxaan alla raali ka yahay danigu ma fiicno haddaniin qof bilow aadana qof baad iska daniyaysaa nahay maxay tii hebel ahayd ama kii hebel ahayd iska daniin walaalo danigu waa shaydaanka wata shaydaan weeye danigu waa shaydaan mar walba waxaad ku fikirtaa walaalo wax fiican oo alla raali ka yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta ku xiran kaliibka ay ku xiran dadka muxuu hayto youtube-ka ku xiran iyo intaan ku xirnaynba ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambigoodii dambi waartkood baa dhaafo walaaliyaal inta ku xiran iyo intaan ku xirnayn ku xirnaan doontaba ilaahay waxaan ka baryaynaa iyo inta ka maqan oo aanba imaaninba iyo inta aanba soo galayninba ilaahay dambigoodii dambi waartkood baa dhaafa Soomaali Maxamed meelay joogtana dambigeedii dambi waartkeed baa Allah dhaaf ilaahay subxaanahu kuwii jannada ku rafiiqa oo jannada isugu yimaada ilaahay hayna ka dhigo hadda cod baynu iskala hadlaynaa laakiin ilaahay hayna ka dhigo kuwii jannada hebla jannada bay tagtay adigu ma saasaadahan jirta anigu jannadii baan ii waran saan isugu soo boodboodna kulligeen ilaahay idankiisa innaga iyo caruurteennaba ilaahay shaydaanka iyo sharka iyo jin iyo insiba shaydaanka muxuu hayto iyo qurbaha ka jira walaalayaal horta ilaahay hayna ka xijaabo wadankeeni markaan joogno horta mashaakilka ina haysataa walaalayaal oon meel la qaban laanahay waa youtube-ku waa shar socda laakiin wax badan oo khayrana waa ku jiraan ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr Allah ina ka soo gaarsiyo wixii sharana Allah ina ka xijaabo ilaahay idankiisa wixii khayr Allah ina soo gaarsiyo wixii sharana Allah ina ka xijaabo biidmillah anigu waxaan jeclahay mar walba walaalayaal inaan inagoo dhan Soomaali Maxamed meelay joogtaba waxaan jeclahay walaalayaal in maaragtaa aynu waxa wanaaga isaga dayano waxaad arkaysaa gabar Soomaaliyada oo waxaad arkaysaa ma sha Allah tabaarakallah gurigeeda iyo ninkeeda iyo reerkeeda ku dhagan ay baa looga dhigayaa ninkaas sixray waa sixranta
hebla iga wataas waa sixran tahay nin waxa la arkayaa fiican oo baariyo oo ilmihiisa iyo naagtiisa iyo reerkiisa wado waxa la masiibo kugu dhacay waa mid sixran kaasa waa la sixray faa'iido ma leh war ma tirahdaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa kan baan ku muxuu hayto ilaahay buu ka baqayaa ama gabadha